sidaan wada ognahay waxaa jira hab dhaqameed qowmiyad kasta ay leedahay. Soomaalidu waxay ka mid tahay qabaa'ilada leh dhaqamada gaarka ah ee lagu garto. Haddii aad aragto nin ama wiil xiran macaawis, markiiba waxaa qalbigaaga ku soo dhacayso inuu yahay Soomaali ama Carab. Intaa kadib waxaan jeclahay inaan sheekadeena ku qaadaa dhigno bal farqiga u dhaxeeya dumarkii hore iyo kan haatan jira. Jahawareer ka taagan kala garashada ragga, gabar iyo garoob, gees xir ama marwo. Haweenkii hore waxay u badnaayeen oo ay ka sinaayeen dhammaantood daacadnimo, xishood iyo qadarin, waxaana ku ilaatay sharaf dhammaanteed. Waxa ay lahaayeen astaamo lagu kala garto gabdhaha la qabo iyo tan madaxa bannaan ee aan la qabin. Waxay aad uga xishoon jireen inay ragga badan xiriir la sameeyaan ama ay shukaansadaan, waxaana taasi kasii darnayd sida ay uga weecan jireen oo ay nacbanaayeen furiinka. waxaa jira walaac ballaaran oo ku wajahan dumarka hadda joogo. sida la wada ogyahay, haweenka waxay caadaysteen dhaqamo xunxun. haddii aan tusaale u soo qaato qaybo ka mid ah dabeecadaha ay la nool yihiin, ayaa waxaa ka mid ah qodobadan soo socdo. 1. inay gabadhu ku faanto furiinka. 2. shukaansiga ama la socoshada ragga badan. 3. raadinta lacagta. 4. hamigooda oo danaysi kaliya ku xiran. 5. ka badbadinta beenta. 6. xishood la'aan. 7. iyo qadarin xumo. iyo sidoo kale wixii la hilmaamo ama la mid ah arrimahaas. ujeedada runta ah maxay tahay? anigoo dhinac u hiilinaynin, waxaa soo ifbaxaya waayadan dambe in raggu ay kala garan waayeen gabadha tan la qaba iyo midda madax bannaan iyo tan garoobka ah, maadaama dareysku ama labisku uu isku mid yahay, daacadna ay ka fog yihiin, dabeecad iyo dhaqanna ay ka siman yihiin. Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinta ka timid wadamada reer galbeedka, isla markaasna hadafkiisa ahaa inuu nolol iyo qoys ka yagaleelo dalka Kenya. waxaa soo food saartay Maxamed arrin la yaab leh, waxaana ay u dhacday sida tan. kadib markii uu la aqalgalay gabar ay muddo wada socdeen, waxa uu ka codsaday oo uu sheegay markii hore inuu gabar bikraha uu rabo oo aanu rabin naag nin hore u soo martay, maadaama aan la kala garanayn dumarkii. gabadhii ayaa igu jawaabtay buu yiri, Maxamed Abbowe, waxaan ahay gabar aan weligeed la guursan, waana iska aaminay buu yiri wiilkii Maxamed ahaa. wallaahi aqalgal kadib waxaa la gaaray runtii, waxaana meesha ka baxday gabarnimadii ay sheegnaysay. waxaan ku arkay waxyaabihii aan ka cabsan jiray. jabkaas isagoo qaba iska qarsaday oo alla tala saartay ayaa haddana waxaa ku dhacday ka daro dibi dhal. macnaheedu waxa ay tahay qoftii falkaas geysatay oo haddana ku qasbaysay inuu dibadda geeyo. yaab, qisadaasi waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed. sirna qaba Allah u maqan, talo jeedin. dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan jeclahay inay ka waantoobaan waxyaabaha qaldan, waayo waxaa aad u dulman ragga, sababtoo ah waxaa jiro qodobo badan oo dumarku ragga ku sameeyaan. waxaad ku xisaabtantaan in nin uu mar walba yahay marti, xitaa haddii uu yahay madaxweyne, naag unbuu hoos tagayaa. sidaas darteed dumaro waa inaad ka ilaalisaan xadgudubka ragga. rabbi ka cabso iyo rag iska riix meel ma wada galaan.